Sheekh Kinyawi waxaa ka mid tahay culimada Soomaaliyeed ee aadka loo yaqaan beeyga Soomaaliya guud ahaan waxaana degan tahay deegaan ku tahay magaalada Qaahira caasimadda Masar goobjoog ayaad ka ahayd xafladii madaxweynaha oo kula kulmay jaaliyada Soomaaliyeed ee Masar bal ka waran dareenkaaga habeenkaasi sidoo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله marka hore waxaan halkan dhambaal uga darayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba uu joogo waxaan leeyahay Soomaaliy ilaahay waxaan idinkaga bariyay meel walba aad joogtaan xaalkeena inuu ilaahay hagaajiyo dhulkeena hooyo barsamaadka ku soo celiyo amnigiisa amaankiisana uu sugo walaal horta waa run aad waa kaaga mahadinaya waraysigan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii Allah dhowro haddii aan in yar u cabiro ummadda Soomaaliyeed ee aanan ka soo qayb gelin xafladii uu madaxweynaha noogu yimid waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan u cabiro si aanay dadku u fahmin oo laakiin aniga aan is leeyahay waa aad bay runtii u wanaagsan tahay inaad dambaalkan ummadda Soomaaliyeed u gudbisid madaxweynaha markii uu soo galayay ma uunan soo gelin keligii jawiguna aad buu u qurux badnaa kuma uunan qurxoonayn jawiga ama qaacada nalalkii ka shidnaa ciidamadii joogay sidii loo qurxiyay ama madaxweynaha dharkii quruxda badnaa ee uu labisnaa laakiin jawiga muuqaalku wuxuu ku qurux badnaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo garab ka haystay madaxweynaheenii hore waalidkeena ahaa runtii nin culimo ahna Cabdiqaasim Salaad Xasan ilaahay ha dhowro caafimaadna Allah si cimrigiisana Allah dheereeyay garabka isagoo sita ayuu soo galay qaacadii markii la arkay labadii madaxweyne oo garbaha haystaan runtii aad iyo aad baa runtii loo farxay dadka qaarkiina waabay ilmeeyeenba inta kuma oonan ekaanin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee wuxuu fariisiyay haddana madaxweynaha dhinaciisa ayuu fariisiyay jawiga aad buu fadhiga u qurux badnaa hadal ayuu siiyay runtii kelmad محمد عبد القاسم ayaa runtii ku horeeyay kadibna waxa u daba maray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha federaalka Soomaaliya intaanu hadalku bilaabin wuxuu ku bilaabay madaxweynaha hal loo istaago madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan waa loo istaagay runtii aad baa runtii loogu sacbiyay dadkii waa farxeen 10 daqiiqo sidaan filaaya ee ugu horeysay khudbadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajona wax kale kagama aanu hadlin bal wuxuu xoog saaray oo uu xusuusiyay dadweynaha Soomaaliyeed wax qabadkii madaxweynihii hore Cabdiqaasim Salaad Xasan runtii aad uu ugu duceeyay fadhigaas oo kale muuqaalkaas oo kale waa ku yaryahay caalamka Afrika iska badaa aad buu wallahi ugu yaryahay laakiin maxaan ka dhadhansan karnaa maxaad is leedahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muuqaalkan uu sameeyay wuu ku gudbinayaa maxaad is leedahay waxaan is leeyahay hadalkii uu jeediyay iyo khudbadiisii waxa ka xeel dheereyd ficilka uu sameeyay wuxuuna dhambaal u dirayaa ummadda Soomaaliyeed ideelkeed shacabka hortii waxa uu u dirayaa waa wasaaraddiisa iyo xildhibaanadiisa iyo xukuumaddiisa qaybaheeda kala duwan oo uu leeyahay Cabdiqaasim waa madaxweynihii iga horeeyay sidaasan u ixtiraamaya oo aan garabka u haystaa oo aan wax qabadkiisii u sheegaya anna meeshiisii ayaan ka sii ambaqaadaya ee waxaad ogaataan wasaaro waxaad ogaataan wasiir walba wasiir baa ka horeeyay waa inuu ixtiraamaa waa inuu qadariyaa waa inuu laabta u furaa waa sulx weeyaan xildhibaan walbana xildhibaan baa ka horeeyay waa inuu xildhibaankii hore u qadariyaa u qiimeeyaa u weyneeyaa laabta u furaa oo u jeclaadaa يعني ايك فعلك محمد عبدالله فرماجو وحان اسليه وانت انو فهمسناهاي ومدنمو ومدوكم يدينايا وصلح ومدو ايو لابتودو كحارايا او كهفايا ويونيون واحترام وقدرين وحويان وقعمها هل اسقبصدو دنبال runtii aad u ballaaran waay waa u baahannahay sidaas oo kale in wax qabadkii dadkii naga horeeyay madaxdii naga horeysay runtii waa u baahannahay in dib dadka loo xusuusiyo ficilkana waxa uga horeeyay sida aad ideelkiin Soomaaliya wada ogsoontihiin maalinkii la doortay waxa dhankiisa midig iyo bidix ka taagnaa waa labadii madaxweyne ee xukunka uga horeeyay waad arkaysaa inay gacmaha isqabsadeen sidaas oo kale loo baahan yahay runtii inaga ideelkiin inta runtii Soomaali dal dibadda inaan sida gacmaha aan isu qabsan ayaa loo baahan yahay waa tahay Sheekh Kinyawi in kastoo aad madaxweynaha la kulmay kulan gaar
balse haddii kuu suurtagal leh maxaad gaarsiin lahayd madaxweyne aad baan u jeclaa runtii in aan la kulmo dadkoo dhanna way jeclaayeen laakiin dadka qaarkii waxay madaxweynaha laga yaabay inay ula kulmayaan inay ka doonanayaan xaq ay markaa iyagu ku leeyihiin laakiin anigu xaq aan ku leeyahay uma aanan doonteen bal xaq ay madaxdeenu ku leedahay culimada ayaan runtii jeclaa in aan u gudbiyo oo aan maaragtay gollanka iyo laabta u geliyo haddana runtii waxaan filayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ilaahay hawsha hala garab galo allaha dhowre inuu imaqlayo haddii aan hor istaagi lahaa waxaan dhihi lahaa jaale madaxweyne ama mudane madaxweyne haaulaa'i raciyatuka alyawm wahum gadan khusamaa'uka cinda allah dadkan soomaaliyeed ee sida quruxda badan meel walba kugu soo dhaweynaya ku doorto ku jecel dal iyo dibadba jooga dadkan kuwooda ladan iyo kuwooda liita kuwooda xanuunsan iyo kuwooda caafimaadka qaba yar iyo weyn rag iyo dumar dadkan runtii kula dhacsan maanta waa raciyadaadii ha kuu yaraadaana ha kuu badnaadaana waa raciyadaadii laakiin waxaad ogaataa aduguna waad dhimanaysaa innaka mayitun wa innahum mayituun iyana way dhimanayaan qiyaama la tagayaa marka la taga kuwan mid walba faraquu ku qabsanayaa wuxuu kaa raadsanayaa kaasoo doonan doonaa xaqoodii ma uu oofisay mise uma aadan oofin ballamihii aad qaaday ma fulisay mise ma aadan fulinin marka intaana maalinkaas gaarin si aad u badbaadid maalinka adiga iyo wasaaradaada iyo xukuumaddaada maanta inta aad kartid ballamihii aad qaaday u oofi ilaahayna ha kula garab galo ugu dambeyn sheekh Kinyaawi fariintaada ugu dambayso maxaad gaarsiin lahayd ummadda Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogaan ummadda Soomaaliyeed fariinta ugu dambaysa waxa weeyaan marka hore ilaahay baan u baryaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ilaahay samata bixiyo xaalkeeda hagaajiyo dhulkoodii ku soo celiyo amnigoodii amaankoodana meel walba ay joogaan inuu marka hore ilaahay sugo waxaan leeyahay Soomaaliyeed cid idin maqan malaha cid idin maqan malaha wadan walbaana wuxuu ku faanaa oo dhisa waa dadkiisa iyo shacabkiisa maanta hadaad madaxweyne hesheen wasaare hesheen xildhibaane hesheen runtii dad hoggaan wanaagsan aad hesheen waxaa loo baahan yahay inaad garabkooda istaagtaan inaad maaragtay adkaysaan inaad maaragtay wax la qabataan dawladda keliyana ayaan wax laga sugin qof walba halka uu joogo in uu wax ka qabtaa la doonayaa kan faqiirka ah inta uu karo kan qaniga ah inta uu karo kan wax yaqaan aqoonyaanka inta uu karo dal iyo dibadba ma aha kuwa gudaha jooga kaliya kuwa dibadda jooga xataa qof walba waxa uu qaban karo inuu qabto dadka wadanku uu soo dirsaday dibadaha jooga lafsadooda wixii ay barteen inay xagga geeyaan waxa xun inaynan qaadin wadankeena uu u baahan yahay cilmigeena dadka dibadda joogow aqoontiina u baahan yahay aqligiina u baahan yahay wax qabadkiina u baahan yahay lacagiina u baahan yahay wuxuu u baahan yahay garaadkiina u baahan yahay idinku idin baahan yahay inaydan dhisin dhulalka markaad wax soo barataan dhulkiina inaad imaadaan dhulka quruxda badan ee aad joogtaan baabuuraad ku raaxaysanaysaan wadooyinka aad ku socotaan waxa soo dhan dad baa dhistay idinka ma lehdin waad ka tagaysaan kuwiina yaa u maqan waa inaad imaadaan aad baa runtii idinkugu baahan yahay waxaan leeyahay hawsheena dal idibadba yaanay noqonin qawda maqashii waxnaha u qaban rasuulku wuxuu ina leeyahay sallallahu alayhi wasallam inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu ilaahi wuxuu si aada u jecel yahay qofka hadii uu hawl qabanayo hawsha uu qabanayo in ay noqoto mid uu itqaaniyo sidoo ilaahi ku og yahay hadaanayna arkaynin dawlad hadaanayna arkaynin riqaabo ayna nasaarneen oo ay dadkuna arkaynin madaxduna arkaynin waxana arkayo waa ilaahi كينا حمانتا وضع حمانتا هجوجيو بوليسكي إيو أمنيكي إي مركا آن أكجوغنا وحما سمينا لكن مركا إيشا وضو أين يقر صونتاي أيان وحن سمينا واحد أغاتان وحن وإنسان وكو أركي كراكو ما أركي كروات غفلة دعي كرت لكن وحانا مرنبا أن مقالكيسي في رديسي إلى لذيسي آني قرسومين والله إلهي نحوليه والله يعلم المفسد من المصلح إلهي مفسدك وكي يقانا ننك مصلحة مرك ومصلح مفسد وإن نغطى مصلح وإن نغطى أدوح إصلاح ساه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
wixii khayr aad nafsadihiina u hormarisaan eeg wax walba aad qabanaysid maaha dad kale inaad u qabanaysid nafsadaada u qabanaysaa waa wax lagu qoraayo xumaantiisa iyo wanaagiisaba marka nafsadiin waxaad u qabanaysaan waxaad ka helaysaan ilaahay agtiisa waxaad ogaataan marnaba lidinka qarin maayeen wanaajiya hana isdhihina wixii aad qabateen dawladda ma oga xukuumadda ma arkaysa oo marka ay agtooda aad joogtaan wax wanaagsan ha qabanina waxaad ogaataan wax walba aad qabanaysaan wama tafcalu min khayrin يعلمه الله خيرك أتسميسان إلهي وأكسون يهي إلهي وحن كبرية أمد الصومالي ميلو بيجوك تتلديد الله هاجيو قلبي قوض إلهي هيسوهفو ولي دير كد الله كيالو قلبي قف كلية الله كيالو انت هذا حنونسان أمد الصومالي الله عافيو انت هذا حرن الله سودايو انت هذا لونسان إلهي سوعليو انت هذا عاسيا إلهي سوهنونيو إذا الكين dhulkeeniyo nabad qaba iyo inagoo nabad qabna ilaahay mar labaad haysukaay keeno astawdicukum allah alladhi la tadi'u wadaa'i'uhu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh